Hey, I'm Steve Harvey, stand-up comedian, entertainer, television host, family man. There's no one way to heaven, no one way to paradise. It's like television. Now it's over 800 channels of cable, and they're all pretty entertaining. السلام عليكم. diinta cusub ee ibraahimiyadda haddaad nala socotay mar ayaan si weyn uga hadalnay muuqaal hore isku darka diimaha iyo u bixinta xiriirka wadamo carbeed iyo Israa'iil dhex maray magaca al-ittifaaq al-ibraahimi heshiiska ibraahimiyadda. haddaba arrinkaas wuxuu ahaa mid hordhaca laakiin maanta xaggee wax marayaan wadamada qaar ayaa si rasmi ah u bilaabay buunbuuninta diintan cusub kadib markay qibla u dhiseen diin aanan aqoonin waxa la yiraahdo islaamka saafida islaamkii lagu soo dejiyay nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Steve Harvey stand up comedy Americana Nusayr Yaasin ama Nas Daily sidoo kale labadaanin waxay ka mid yihiin arkaanta faafinta diintan cusub waxaana lagu bixinayaa طبعا malaayiin lacaga. فالآن إذن لدينا حكومات تدعم رسميا هذا المشروع لا تخفيه كما ترون، كما أعلنت مؤخرا التطبيع العلني مع إسرائيل بعد ما كان مشروع سري، فالآن التعاون المخابراتي مع الموساد صار علنيا، فماذا نستبعد بعد ذلك؟ أين المشكلة بعد كل هذا لو غيروا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ labadaba waxay ku nool yihiin waqtigan dawladda Imaaraadka Carabta arrinku halka uu gaaray. Steve Harvey nin majaajilaysta ah ayaana baraya maanta oo nale haddaad u maleynaysaan in jannada islaamnimo kaliya lagu galo waxaad ogaataan inuu arrinkan yahay qalad waad qaldantihiin. It's like television. Now it's over 800 channels of cable, and they're all pretty entertaining. wuxuu leeyahay Steve Harvey jannadu waa sidii telefishin oo kale 800 channel ayaa ku hor yaallo mid kaad rabtaa daawan kartaa xorriyadda adigaa leh. jannaduna waa sidaas oo kale uma baahnid inaad islaam tahay si aad u gasho jannada ee waxaad rabtid samee diintaad rabtid aamin arrinkaana ah waxa ay dhigayso diinta ibraahimiyadda. ma jirto hal waddo oo jannada lagu galaayo asagoo ula jeeda islaamka majaajilayste Steve Harvey waxaa ka sii daran yarkan ku faanayo inuu Israa'iili yahay Nas Daily magaciisana uu yahay Nusayr Yaasin waanu imaan doona arrinkiisa wuxuu isku aadinayaa hadalkiisa iyo qof muslim ah oo sujuudaya taasoo ah haddaad u maleynaysaan in jannada halkan qaab ee islaamnimada lagu galo waxaad ogaataan in uuna arrinkan sax ahayn. People who are religious think their religion is right. There is only one way to God. wuxuu leeyahay arrinkan islaamnimada ah sujuudaas uu qofkaas sujuudayo ma ahan wadada kaliya ee jannada loo maro. wuxuu soo muujinayaa hinduus siikh wathaniyiin kala duwan iyo sidoo kale muslimiin taasoo ah dhammaantiin isku mid ayaa tihiin. islaamku hadduu xaq yahay hinduuska iyo caabudidda lo'dana waa xaq. islaamku hadduu baatil yahay hinduuska iyo diimahan kalena waa baatil. ninkan lagu magacaabay Steve Harvey nolosha waxa uu ka yaqaano waa majaajiladaas buugaagtaas uu alifay ee ah libaax baan ahay dheh buugaag ganacsi oo wax cilmi aan ku dhisnayn laakiin maanta jasiiradii carabta ee islaamka saldhigga u ahayd hadda imaaday ayuuna barayaa qaabka jannada lagu galo asagoona leh iska ilooba wax la yiraahdo diin islaam ayaa sax ah diimaha oo dhan waa sax. si aad janno u gasho uma baahnid inaad islaam noqoto taasoo ah looma baahno weysada xilliga qabowga aad weysaysanayso soonka subaxdii aad salaada fajarka u kalahayso adoo qarqarayo adigoo isla janno gal. Steve Harvey wuxuu ku leeyahay arrinkan uma baahnid si aad janno u gasho waxaad rabtidna iska samee jannadana waad geliye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. waxaa macquul ah in maalin uun aad internetka ku aragtay yarkan leh shirkadda warbaahineed ee lagu magacaabo Nas Daily. It's 6 a.m., but I have finally arrived to my home in Israel. asalkiisa waa Falastiini laakiin wuxuu sheegtaa inuu yahay Israa'iili baasaboorka Israa'iil ayuuna wataa. arrinkan oo ayna sameeyeen xitaa dadka lagu magacaabo Carab Israa'iil ama Carab 48 Falastiiniyiinta ama Carabta ku nool dhulkii ay Yuhuuddu qabsatay 1948 bilowgiisa
markii hore wuxuu ahaa blogger caadi ah wuxuu ka tagay shaqo gudaha Mareykanka oo lacag badan ku qaadan jiray asagoo doortay in uu soo gudbiyo muuqaalo yar daafaha caalamka wuxuu xaqiijiyay la cajabi dad badan runtii markii laga soo tago wax uu aaminsan yahay iyo wax uu faafinayo isluubka iyo qaabka uu adeegsanayo waa mid cajiiba soo jiidashana leh laakiin hal mar ayuu isu bedelay qof ahaa nin dhalinyaro ah caadi ah waxyaabo iska ijtimaaci soo gudbiyo qof faafinayo afkaar jahannami ah sida ku dhiirigelinta carabta aqbalida Israa'iil iyo fikir ku dhisan tacadud al-adyaan ma jirto diin sax ah islaamka iyo hinduuska wax farqa uma dhaxeeyo intaas kuma una ekaanin wuxuu furtay akaademiyad dhalinyarada YouTube-leyda ah tababar u fidinayso طبعا wuxuu gacan ka helayaa dawlad ka mid ah dawladaha khaliijka ee buunbuuninayo diintan iyo afkaartan islaamka lidka ku ah waxay sameyn jireen sida in ay la soo xiriiraan dhalinyarada YouTube-ka wax ku soo gudbiso kadibna loo soo bandhigo in kanaaladooda loo maamulayo sida in jadwal loo sameynayo muuqaalada loo habaynayo waxyaabo badan laga saacidayo dhalinyaro badan ayaa dabinkan ku dhacay laakiin dib ka ogaaday arrinku in uuna ahayn mid caadi ah ee uu yahay in loo adeegsanayo faafinta aqbalida Israa'iil iyo waliba ka tanaasulida islaamka iyo waliba ka tanaasulida islaamka dhabta ah noocay ahaataba tanaasulidan sida uu leeyahay yarkan maxaan uga tagay ama maxaan uga baxay akaademiyada naas daily asagoo leh waxaana loo dusinaya afkaar ah in aan aqbalna Israa'iil انه انا انسحبت مؤخرا من مشروع ناس ديلي برنامج تدريبي طويل لمدة 6 أشهر ل80 صانع محتوى من الوطن العربي أولا المشروع عليه شبهات كثيرة حتى مؤخرا منظمات مختصة تكلمت عن خطر هذا المشروع بالنسبة للقضية الفلسطينية وبالنسبة لتغيير وعي الشعوب sidoo kale ninkan waxaa lagu magacaabaa Fadi Yunus YouTuber asal Falastiini ah kuna nool waqtigan Canada wuxuu ka mid ahaa dadka ka hadlay dabinka naas daily ee ah faafinta afkaarta sahyuuniga iyo wax walba oo islaamka micnihiisa dhabta ka saarayo زي ما كلكم تعرفوا أنا مؤخراً ذكرت إني أنا انضميت لأكاديمية ناس للتدريب وتعليم صناعة المحتوى وكمان ذكرت بأنه راح ندرب 80 صانع محتوى من الوطن العربي وهذول راح يكونوا جزء من مبادرة أو برنامج اسمه The Next Nas Daily dadka sidaan ah dawlad carbeed oo islaam sheeganayso ayaa fangareynayso kuna faanayso فلاحظوا كيف هذا الأسلوب الدعائي المشفوع بالموسيقى وبنجوم هوليوود ولا نعرف كم دفعت له هذه الحكومة لهذا النجم التلفزيوني diintan ibraahimiyadda maanta waxay leedahay dad difaacayo oo haddii wax laga sheego qaylinayo islaamkana ka hormarinayo maalin dhow imaaraadka iyo kuwait waxaa ka dhex taagnaa muran iyo dood badan arrin la xiriiro diintan cusub sheekhan waxaa lagu magacaabaa Uthman al-Khamis waa sheekh kuwaiti ah waxaa wax laga weydiiyey diintan cusub waxa ay tahay xitaa asagoona magac dawlad sheegin ayuu yidhi waa khuraafaad islaamka lid ku ah isla markiiba waxaa seefta baadilka qaatay Wasiim Yuusuf mid ka mid ah ragga diintan cusub oo ololeynayo wuxuuna caayay Uthman al-Khamis iyo xitaa mawruudka islaamiga ee dadka muslimiinta aaminsan yihiin Wasiim Yuusufna طبعا waa nin aan wax mabaadi' lahayn dirhamka kaliya caabudo markaad akhrisana wax uu ka qoray diintan cusub wuxuu aaminsan yahay in guriga al-Bayt al-Ibrahimi ee imaaraadka carabta laga dhisay uu Maka ka fiican yahay wuxuuna adeegsadaa markuu ka hadlayo magaca qiblatul muhibbiin qiblad ayuu ku tilmaamaa حتى إن في بعض بلاد جعلوا بيتا البيت الإبراهيمي وقالوا ديانة الإسلام واليهودية والنصرانية ودين عيسى هو دين محمد ودين موسى هو دين محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وليست هناك أديان هو دين واحد فجعلوها 3 أديان وهذه منسوخة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار وهذا من الكفر هذا دعوة البيت الإبراهيمي كفر بالله تبارك وتعالى أن يجعل 3 أديان وأن الإسلام ويضعون القرآن والتوراة والإنجيل سواء haddaba markuu lahaa canugaas lagu magacaabo naas daily islaamnimadu ma ahan wadada keliya ee jannada lagu tago hadal noocan oo kale ah uma jeedin kara kiristanka aaminsan in ciddii leh ciise waa canuga ilaahay keliya ee jannada galayso sida uu leeyahay baadarigan masriga cid walba oo aan rumaysnayn in ciise uu canuga ilaahay yahay jaxiimada ayay ku guban doontaa jannada ma rabtaa inaad gasho waa inaad dhahdaa ciise ibnullah sida uu leeyahay baadarigan
لأنه ده تعليم المسيح، من يرفض ابن الله يبقى ملوش نصيب في الحياة الأبدية، يمكث عليه غضب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. dhagar badan ayaa jirta. waxa ugu muhiimsan zamankan waa wacyiga in majaajilaysta ah iyo canug suhyooni ah iyo dad lamid ah aan waxba ka dhageysanin aan diintanada ka qaadanin. muuqaalkan intaan ay ku egahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.